ciidanka SSB maalintuu ka dhacay dagaalku Maygaagli iyadoo meydka waxaan kugu yiri habar jecel oo yaala Maygaagli qurga dhexdooda ninkii loo xil saaray inuu ciidanka SSB soo jabiyo oo ka soo saaray aaga ee hubka ka soo urursaday burco ku soo xareeyay isaga laftigiisu in la taageero waa sax in wax la yeesho waa sax ummadda reer Soomaaliland waxay leedahay xuquuq isku mid ah ummadda reer Soomaaliland in loo xaq sooro waa sax laakiin wixii ka hor imanaya marka hore ka sii fiirso wixii aqabateen waxa weeye cid walba way ka hortay arrimaha habar jecelo meel kasta ha mareen haddii la bilaabay iyo haddii markay dhamaanayaan cidda jaangoysana waa suldaanka guud ee Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Suldaan Muusawi intii kale waa farac in walba reer buu ka socda waxaan la hadlayaa madax dhaqameedka habar jecelo ama caaqil ha noqdo ama maxay tahay suldaan ha noqdo ayaan la hadlayaa horta nin walba wixii lagu doortay waad garanaysaa nin kasta waxa loo doortay inuu ka shaqeeyo beeshiisa nabadgelyadeeda xasiloonideeda deris wanaagga iyo waxaan ku yiri wixii beeshiisa ku haboon wixii xaquuq ay leedahayna inuu u raadiyo wixii ummaddu xaq ugu leedahayna inuu ka siiyo madax dhaqameedka intaa weeye shaqadoodu waxa allaaliyo wax siyaasadoo loo dirtay ma jirto ta kale ninku markuu shir qabanayo madax dhaqameedku shirku wuxuu ka soo bilaabmaa reerku ka soo bilaabmaa nin waliba qoyskiisa iyo raaskiisu ka soo bilaabaa markuu ka soo bilaabo wuxuu soo qaybiyaa oo soo qaybiyaa dad waxaan kugu yiri dadkii deegaanka ahaa ee suldaanka u ahaa ee caaqilka u ahaa ayuu ka keenaa dad sidaasuu ku hawlgeliyaa shirku qabtaa ku taga wax aanu reerkiisa hadduu la tashan waayo waxa weeye isagana taladiisa la yeeli maayo waxa weeye deeta haddii madax dhaqameedku noqdo qaabka jabhadoo kale oo ka bayro waxaan ku dariiqay madax dhaqameedka waxa weeye way qaldamaysaa weey marka waxaan leeyahay madax dhaqameedku yaanu dhaafin beeshiisa yaanu dhaafin nin kastaba ha kuu sheekeeyo nin kastaba meel kasta ha maro arrimaha habar jecelo meel kasta ha mareen haddii la bilaabay iyo haddii markay dhamaanayaan cidda jaangoysana waa suldaanka guud ee Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Suldaan Muusawi intii kale waa farac in walba reer buu ka socda in walba qoys hoos u sii taliya taa horta yaan la lumi ta kale cid la taageero waa sax in wax la yeesho waa sax ummadda reer Soomaaliland waxay leedahay xuquuq isku mid ah ummadda reer Soomaaliland in loo xaq sooro waa sax laakiin wixii ka hor imanaya marka hore ka sii fiirso wixii aqabateen waxa weeye cid walba way ka hortay intaasan leeyahay waxaan kaloo la hadlayaa guddida gaashaanbuur yaan la hadlaya guddida gaashaanbuur horta waxaa la doortay 2018 baa la doortay gaashaanbuurina feer bay leedahay shirweynaha gaashaanbuur wuxuu dhacaa 2 sanadoodba mar 5 sanadood bay muddo dhaafiyeen 5 sanadood ay muddo dhaafiyeen waxa allaaliyo waxa dal wax shiro qabteen beesha u qabteen ma jirto waxa allaaliyo waxa diyaalo wax dhibaato mooyaane wax khayr ay beesha u keeneen ma jirto maantana dad guddi maaha cid ba ku adeegata gaar ba ku adeegata waxaan la hadlayaa waliba ninka sheegtay gudoomiyaha gaashaanbuureed baan la hadlayaa gudoomiyaha gaashaanbuureed iyo guddidiisu ma isticmaali karaan waxaan ku yiri beesho aanay raalli ka ahayn ma isticmaali karaan
mandaysna uma haystaa halkay maantay marayso dee waxaa weeye waa balanbalaya wey weliba qaladkii ugu weyneyd raggii galay iyuu ka mid yahay ciidanka SSB maalintuu ka dhacay dagaalku Maygagle iyadoo meydka waxaan kugu yidhi habar jecel oo yaala Maygagle qurbi dhexdooda ninkii loo xil saaray inuu ciidanka SSB soo jabiyo oo ka soo saaray aagga ee hubka ka soo urursaday burco ku soo xareeyay isaga laftigiisu iyo inta la socota iyo inta caqaasha garboodaysa ayay war ma ninkii shalaytay meydka ka yiri hubkii ciidanka soo